عظيما صدق الله العظيم. حاكم الدين أجلها ما يأذنكم بسم الله الرحمن الرحيم. وعاوة سوي مني قولوا ودقيقة هوية إمام محمد يوسف علي إمام بوابك يضرك إيه وحقرك كسوجي هذا وينها الدقن مقدشة اللبانة هي سوي مادين وهيك هذا عين ورك كسوي مانفا دولتنا كسوي ري أو قصة أصلا مسيرك يقول كان بنادر هي وليبة وحلو لي هي الحساب الولد ولدي وحيرنوا عصا أو بحثني أو كأك مقدشة أو كليه taasina dawladdu waxay ku leedahay degmo kasta iyo gobol kasta waxay ku leedahay deegaano xafiisyo ay ku leedahay waa fiican tahay in laba galo oo la ogaado meesha ay ka jiraan la hor istaagi ma laakiin waa inay wax Soomaali quseeya ee tooyin raqam wax gaar waxay kaloo ay ka dhiganayaan meeshu meel muqdisho waa in loo aqoonsado meel inta isugu yimaado lagu tashado laakiin iyadoo loo tashado sax ma aha waxa marka meesha laga akhri doonaa والصحافة أي صوص صارين دوبك بيرنا أي صوص صارين أي ماشى الله يحفظون عند الله إنه وأي حل ما نضح أي صوص صارين يدوبك أي صوص صارين يوحجرة بلاد كان داير كان بنادر صوص صارين أي حد كان يحفظون عند الله إنه وأنا الله يحفظونه وأنا بقرأ أخذت كور هذا الضوء ماشي وبس على سوري وبس مسلو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة حدقوا قولك براندل أمشان سبوي هي حدبان لدى بسكوت كميدة حيث أفكرتين جوائز مكسورين مدحوينها إن لغو بدلو كجرت مناسب نمو إيو حسلوني وحيث أفكرتين بيرها إن أرنتاس جوائز الجوائز لقب حيو ونوكو كترجمينو قبل كبراندل ضدك الدقو دوبك يا وديالك دقنك يو xildhibaanada waxaa la yiri in la isku afgarto arrintaas inaysan munaasib ahayn jawaabdaas ma rabno si qaldan inaan u bixino dadka waa dad Soomaali dadka waa dad Soomaali madaxweynaha dadka waa dadkiisii waxaa laga rabaa si inuu u jawaabo wax ku aadan in boqo magaalada kaligiis lagu qotamiyo gobolladana waa badan yihiin deegaamadana waa badan yihiin saas xoogaa yar waxay nala naqatay in jawaab laga bixiyo xumaana oo lama jeedno saas darteed waxaan ku soo dhaweeynaa war saxaafadeed la akhri doono waaska loo akhri doono haddii ilaahay yidhaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم. duubabka xildhibaanada dadka ahalka ahoo meesha isugu yimid ummadda baraadir u dhalatay oo ka qiiroon baraadir dhisme la-aantiisa ka qiirootay ayaa meeshaan isugu timid cawada dad ka mid ahoo dad culus ah ilaahay helada soo culus yahay dadkaasu wuxuu diidan yahay ow dhibsaha baraadir dhismadiisa dadka dhibsaayoo dhammu kasoo horjeedaa qoftii dhibsayso oo la arkana waana dhibaysaa taas ma rabno waxna dhibaayo in ma rabno wax dadka dhibaana u dhaweeyeen baraadir wixii dhibaana waana dhibaya waxaan u jeednaa warqadda la soo qoray oo madaxweynuhu uu soo qoray oo la leeyahay la xisaabtan iyo xisaab xilmale iyo guddiga loo saaraa iyo waxyaalka uu sheegayo oo warqadaas ku yaala waxaan u qaadanay
waxaa la yidhi hal maqaamka banaadir ha la muujiyo 28 la mudeeyey muddadii tii horena horaa loo mudeeyey waa baajiyeen midaana haddana lagu celiyey midaanay haddana hor ma hayaan ujeedadoodu saas ay nala tahay hadday saas tahay waa karaahsanahana laka deeyo waxaana idiin sheegaynaa ragga madaxda ah oo amba madaxweynuhu ku jiro amba ra-iisul wasaaruhu ku jiro amba taabid ku jiro way isla yimideen ha isla joogeen haddii isla suuroobi weydo halkaana lahaa gooni loo diraa ciddaan u aqbali mayso haddana waxaa akri doona warsaxaafeedka u akrinaya ugaas cabdullaahi ugaas saalax ميكروفونada loo dhabeeyo waa sheegay maxaa la wadaayeen بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ku akhrinayaa shirkii dheeraa caawa ay isugu yimaadeen qaar ka mid a duubabka beelaha gobolka banaadir loogana arrinsanaya xaaladda maaragtay gobolka banaadir iyo sida wadciga u maraayo warmartiyeedkana wuxuu ku taariikhaysan yahay oo caawa 20 bisha January ay tahay wuxuu ku bilaabanayaa sida tan annagoo ah qaar ka mid a duubabka iyo waxgaradka beelaha degan gobolka banaadir waxaan walaac ka muujinaynaa qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha haddaba waxaan maaragtay soo jeedinaynaa qodobo badan oo halkan ku qoran idinkoo dadka shacabka iyo kulle ay wada ogyihiin in duubabkaanay hore ugu jireen ka hortegidda maaragtay xasilinta iyo dhibaatooyinka gobolka banaadir ka jiray hore arrimo ka dhacay ay ugu jireen haatan waxay soo jeedinayaan go-aanadan waxaan soo jeedinaynaa ilaalinta oo inay waajib tahay in la ilaaliyo hantida qaranka iyo dowladnimada soomaaliya in la ilaaliyo waxaan maaragtay kala soo jeedinaynaa in hantida qaranku ay taalo meel walba oo dalka soomaaliya una wada baahan tahay si isku wada mid ah in loo ilaaliyo taasoo aan aada u soo dhaweynayno waxaa iyadana u baahan in hoosta laga xariiqo in ay isku soo aadeen kulan wada tashi ahaa oo uu ku baaqay guddoomiyaha gobolka banaadir iyo warqadan soo baxday ee arrimaha dhulka ka hadlayso marka waxaan leenahay warqadda waxa waaye waxay ku astaysan tahay dhulkaas waxaana u diyaarin maaragtay ay ka hadlaysaa dhacdooyin badan oo dhulka ah oo intaan ognahayba lagu soo qaaday waxaa ayadana madaxda qaranka iyo dowlad goboleedyada la xusuusinayaa in dastuurka ogol yahay in ummadda soomaaliyeed isku timaado deegaanada ayna samaysato si tala ah ay wax ku samaysato taasoon diyaar u nahay inaan ilaalino iyadoo maaragtay lala tashanayo dhammaan beelaha wada degan gobolka maaragtay gobolka banaadir si ay u helaan maamul la soo doortay waxaan kaloo madaxda qaranka usoo jeedinaynaa inay maaragtay u ogolaadaan shirweynahaas inuu dhaco oo dadka shacabka gobolka banaadir inay shirweynahaas qabsadaan si ay uga tashadaan aayahooda una helaan madax ay soo doorteen waxaa kaloo odayaasha dhaqanku ay ogaadeen caawa in macnihii warqadaha dhulka ku saabsan in aysan warqad rasmi ah oo arrintaas ku saabsan aysan soo gaarin duqa magaalada ahna guddoomiyaha gobolka haddaba guntii gunaanadkii ugu dambeyntii waxaa caawa halkan markaan wada tashanay maaragtay isla ogolaanay in la magacaabo lana diyaariyo guddi ka kooban duubabka iyo waxgaradka beelaha dega gobolka banaadir dhammaan beelaha dega gobolka banaadir kaasoo ay ka tashan doonaan masiirka iyo mustaqbalka gobolka banaadir wabilaahi towfiiq
Saya